وضقان سبحانك يا مها لغرتك سبحانك wararka naga soo gaaray magaalada madaxda Itoobiya Addis Ababa ayaa sheegaya in Itoobiya amartay biyo xireenkii labaad shirkadda dhanka dhismaha ay u qabatay tartan isla markaasina ay ku amartay in biyo xireenkii labaad ka bineeyaan gobolka koonfurta galbeed ku yaala ee Tigray biyo xireenkan oo ay ku baxayso 2.5 bilyan oo bir oo lacagta wadankaasi Itoobiya ah isla markaasina u dhiganta 76 milyan oo dollar ayaa laga bineyn doonaa gobolka Tigray ee koonfurta galbeed ee dalkaasi Itoobiya shirkadda la yiraahdo Ethiopian Irrigation Commission oo iyagu ah guddi u xil saaran dhanka dhismayaasha gaar ahaan kuwa waraabka iyo biyo xireenada ayaa 3 shirkadood u shubay lacag xaddigeedu yahay taa in kor ku soo sheegnay isla markaasina amar ayaa lagu siiyay inay ka bineeyaan webiga inay ka bineeyaan dam ay u bixiyeen Kasa Dam oo isaga laga bineyn doono koonfurta galbeed ee gobolka Tigray ee dalka Itoobiya damkan ayaa ka kooban 57 mitir oo jooga oo dhererkiisu yahay iyo 2.45 oo ah 2 mitir iyo badh in ka badan oo square isla markaasina ah mid ku fadhiya 10,000 oo hektar oo dhula waxaana ka faa'iideysan doona sida lagu sheegay warbixinta 20,000 oo beeraleyda oo reer Itoobiya gaar ahaan ku dhaqan gobolkaasi Tigray dawladda Masaarida ayaa iyadu ganacsiga ku dhufatay arrinkan isla markaasina sheegtay inay arrintu imika taagan tahay inay faraha ka baxdo Masarna aan madib u dul qaadan doonin hadii Itoobiya ay joojin weydo biyo xireenada hortale ee imika ka bineynayso wadankeeda tan ayay Masar ku sababaysay in laga baqan qabo in gebi ahaanba ay meesha ka saaraan biyo habsami socodkii biyaha webiga isla markaasina ay biyihii 70% in u leexdaan dhaamka ay bineynayso Itoobiya dawladda Itoobiya ayaa iyadu aan dhag jalaq u siin baaqyada uga imanaya Khartoum iyo Qaahira oo ah inay joojiso biyo xireenada dawladda uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Hamdoun ee dalkaasi Suudaan ayaa iyadu diiday inay saxiixdo maanta heshiis hordhac ah oo Itoobiya ka dalbatay inay saxiixdo kaasi oo la xidhiidhay dhanka waraabka iyo biyo xireenada Itoobiya oo ay ku saleysay inay yihiin kuwa aan waxba yeelaynin habsami